munaasabadan ayaa ahayd mid uu soo qaban qaabiyay ganacsade Maxamed Cabdiraxmaan Caraale Jabuutaawi ayaa habeenkii xalay ka dhacay qasriga madaxtooyada ee magaalada Laascaanood waxaana munaasabadan intaan sidii bulshada reer Laascaanood iyo guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Xaysimo lagu wacyigelin lahaa in maalinta doorashada ay codkooda siiyaan xisbiga talada dalka ay kulmiye kaasoo muslimiinta halkaasi ka soo qayb galay ay ku tilmaameen in wax badan ka qabtay gobolka Sool waxaana munaasabada ka soo qayb galay mas'uuliyiin u horkacaya ganacsade Jabuutaawi iyo sidoo kale wasiirka amuraha gudaha Soomaaliland wasiir dowladaha beeraha saraakiil sare ka tirsan xisbiga kulmiye haween cuqaal dhalinyaro iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana dadkii halkaasi hadalka u kala dambeeyay ay ganacsadaha ku amaaneen wax qabadkii balaana uu la garab taagnaa xisbiga kulmiye iyo gobolka Sool iyo wasiirada dhamaan salaanta islaamka ku salaamaya halkan anigu afka dhalinyarada isboortiga waxaan ka cadeynaynaa in aanu taageersanahay xisbiga kulmiye maadaama nahay dhalinyarada isboortiga taaka bacdaa waxaan isugu nimid xafada sharaftii qiimaha qaadaha leh ee waxaan ku guulaan maamuusin ee ganacsadana daadayr isagu ku wariiskiisu maamulay dadka reer Soomaaliland waxaynu dheernaa dadka reer Soomaaliland oo ka harsan waxaynu dheernahay hal qodob ganacsadaheena baa magaaladiisa wax geliya Maxamed Jabuutaawi dadka gobolada kala dheernaa dad reer Laascaanood nahay munaasabad aynu ugu diyaar garoobano iskuna dardaarmano inaynu kulmiye u codayno aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsade Maxamed Jabuutaawi oo si bareer ah u taageeray xisbiga xaakimka kulmiye isagoo ku ballan qaaday inaan waxba kala hadhi doonin sidoo uu soo saari lahaa musharaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdiye ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici marka hore waxaan uga mahadcelinayaa xafladana sida quruxda badan loo soo agaasimay ganacsadeena Maxamed Cabdiraxmaan Caraale Jabuutaawi oo runtii ah haldoorka gobolka Sool geed dheer iyo geed gaaban oo koray sidoo gobolkan horumar u gaarsiin lahaa aad baan santiin ordo waxa idin sheegaya waxa lagu leeyahay ganacsatada tahay ma ku waalid ma jahad dabadiisa ka soo haleeshay sida ganacsatada kale way kaliftay inaan soo baxo kaliftay wariyaale wasiirada waxa lagu yeeray qurbaha lagu yeeray maxaa idinka la idinku arka ana garanaya farteena hadaynu ku wada codeyno hataa ana soo shareeyna war waxaan bari ku faalmay ma siinaysa waxaan bajishin laakiin waxaan rabaa inaan Muuse bari ugu faalo codka gobolka Sool iyo Sanaag ka soo baxay waxa Muuse idinkaga baqan waxa Muuse idinkaga maqan sida maanta siyaasadda isugu soo qaawiyay baan isagana ugu galaya oo ka soo qaadaya dad beelnahay oo dad cid beelnahay oo dadkeena ugu badan war gacanteena ku ilbaxno oo dadka wax la qaybsan waxaan rabaa anna waa jecelahay idina waa jeceshiin war waxaan rabaa xisbiga kulmiye bari waxaan ugu faalay meelka helaya ilaahu marxaati ka haw war ma codeynayna يوارث السوشيال راح يعطى ذلك هديك الله جدا هذا من السال مريا كين نمكا وحان إيدي إن أنت كذا حقوق بكرة وأنا واحد شداد كمله أنا قرب ما تجين أو أفريقيا مالقشان أو تبدأ مالقشان والله سعنا بهذه مالقلية والله يكره وحال الدنيا ما لو بهايا هدبا هذا ما مركاين اي دحاysay doorashadu inaad ku dalaashaan dadka xisbiyada kale mudada dheer taageerayaasha u ahaa ama dadka aan wali go'aansan meesha taageerayaan sidii aad u qancin lahayd inay xisbiga u codeeyaan inay kulmiye u codeeyaan arrintaas waa arrin muhiim ah زيارة بدأت بعد الطلاق عن الكرام. وفرحان محمد عيديد RL TV Laascaanood.